dhinac baan siin doonaa marka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي عبد الرحمن قاس runtii israad baynu ugu mahadnaqaynaa kulankan muhiimka xildhibaankuna runtii si fiican buu isna u soo koobay laba qodob baan anigu bixi lahaayo mid waxa weeyaan maanta isna wuxuu nagu soo celiyay in liidka loo baahan yahay maanta inay on board noqdaan marka taas baan doonayaa inaan kelmad yar ka idhaahdo iyo waxyaabahan is leeyahay way forwardka way sii kabi kartaa runtii waddankan aynu maanta joognay Somaliland oo 60 sanadood baarka ka gooyay intii Ingiriisku ka sii maqnaa waxa is leeyahay halka waxa dhigay waxa weeyaan marnaba dadkiisa iliidka ah waddankan hogaamin iyo tala toona kuma tarsaneen mar walba cid kale ayaa hor ordaysay 1960 xamar baynu tagnay iliidkii shacabku haba doono oo hala yiraahdo shacabka doonayay laakiin iliidkii may u dhigin options oo xamar inagamay waxaynu maanta ku kala baxno may dhigin halka iliidkeenu uu gabay 1990 markii aynu goosanaynay maynaan la fagurin goosashada moodalka aynu qaadanayno iyo sida aynu uga midho dhalinayno iyo inta scenario inaga horeysa iyo mid kasta waxaynu ka yeelino maalintaana iliidka ayaa runtii gabay oo magaranaysa arinta halka dhigay 20kii sano 91kii ka dambeeyay waynu iska fadhinay wax alla waxaynu soo kordhinay iyo waxaynu meel dhiganay iyo wax qorsho aynu diyaarsanay iyo wax istaraatiijiyad aynu diyaarsanay ma jirin 2012kii markii ay noqotay in xamar loo taliyo ee adduunyadii xamar u soo jeesatay ayaa la inoo yeeray haddana markaas la yiraahdo soo fariista miiska waxa weeyaan maanta wada hadal ogolaada waayibeen mar waxaynu soo fariisanay wada hadal aan wax alla waxinoo diyaarsanay aan jirin sababta cidda markaa miiska fadhidina oo options ma haynin aan ahayn ka caanka ah ee runtii uu xildhibaanku sheegay manay diyaarsaneen wax meesha aan ku gorgortanaanay meesha ma oolin oo iliidkii baa meesha ka maqnaa أنا وحصلي nin أبوانا بعد 91kii sidaa u eegay siyaasiyiintii Soomaaliland oo xuyuri daacado hashaydan markaan daya amuurta daacado hashaydan dar alle u socotaa buud markaan macnaheedu waxa weeyaan wax alla wax ay ku socoto qorshe ah oo beeyso aynu ku wareegaynaa meesha ma oolin maanta iyo haatan 8 sano ka soo wareegtay intii ay wada hadalkan furnaa raafna lama riixin waa bisi ribati waa halka junior partnerka uu xildhibaan ku sheegay runtii أنا وحصلي هاي هالك الشيء كم مكان إن أي نقوليسنو أو وطن كان وحي وكقول درستي صدق كي سنة لحد كي سنة أنا ضعفي وحكد دواني وأركض طبعا كسنة شنطة سنة صدق كسنة كنتم كسنة صاص على حوي وحي أي نقابن شرني وحكد دواني نقابنه أو ضد كسيناريوس كسمين كرا أركتيدا سمين كرا أقوم تله إن أي هجان ضد كسياسيين تاجي ضد كذا كذا ما أنت سياسي سيرو سيناريو iyo dhaqan aan laba soconin adduunyada waxa la kala gadanayo ayaa runtii inay hormargalaya oo siyaasadeena hagaya Soomaaliland waxay u baahan tahay maanta iyo haatan in ay ka baxdo siyaasadii runtii scenario-dan ama siyaasadan rakaabinta gawaadhida meelaha fogfog u baxda waxa la oran jiray gaari hebel baa meel fog u baxayo waa la rakaabinayaa 3 cisho 4 cisho ayuu raranayaa inagu siyaasadeena wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya waxay noqotay mid 3 cisho ugu dambeeya marka shir la isla garto runtii la rakaabiyo la yiraahdo raacayo lagu qoraa cid aan options haynin cid aan soo fakirin cid aan soo magaranaysa isla soo jaan qaadin cid aan waxba sidanin oo 3 cisho gudahood la isku soo qoray ayaa runtii miiska timaada siyaasiyiinteena markad weydiisana waxa koonay oo iyaga naga daranay marka macnaheedu waxa yaa baahan de adiga baahan ma aha ninkan aan kuba baahanaynay maanta aan priority ba wahayn maanta aan waxba uga dhul oolin inaad isku dhariirsan maaha marka aan waxaan lahaa maanta cidda ay ka goodo arintan Soomaaliland inay way out u samayso ha dhageysato talada dadka aqoon-yahanka ah oo ha u aragto wax ay wax ku sixi karto si ay ugu soo baxaan wax ka duwan wixii hore aan ku guuldareysanay marka maanta aan halkan waxa aan oran lahaa inteenan waxa la isugu keenay inteenii dibad joog ahaydee laga yaabo inaan kuba jirinba meelaha lagu fakirayo ee waxa lagu rogrogayo inteenan dibad joog ahay inaynu gudaha gallo oo sideen doona aynu u galle aynu dadkeenan maanta arintan ka goodo soo fariisino oo waxay ahayd shirkan oo kale wasaaraddeena arrimaha dibadda at least inay joogto in madaxtooyadeena wax ka joogaan in cid uun ma garanaysaa bal warkan aynu hayno gudaha geyn kartaa ay joogto
waxaan oran lahaa intan aynu maanta halkan ku hayno ee isir runtii ay ka soo shaqeysay ee institutionska kale ee laga yaabaa la midkii ka soo shaqeeyeen intaynu ururino aynu gudaha gelino maalin kasta oo ay dib u dhacdaana runtii waxay keenaysaa inay 60 sano ee soo socda imka inoo bilaabmay ay ka sii goyso inaynu horumar gaadhno runtii intaasaan anigu kusoo koobi lahaa waxaan oran lahaa maanta institutions strategies cusub oo aynu wadankan hore ugu dhaqaajino aynu la nimaadno aynu ka dayno golafuulkii rakaabiska ahaa runtii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsantahay cabdiraxmaan badankana waxa la yidhaha bahdan waxbarashadu waa minority maalmahan dambe marka aqoontu contribution keeni mayso haddaynan macala innaga aqoonteennii aynaan relevancy ka dhigin maadaama wiilal hadleen markii hore taanks raggaa gacmaha taagay dhammaantiin sacdiyaan siin doonaa oo insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sacdiye muse axmed aniga fikradaydu waxa weeyaan horta meeshaynu wax ka bilownayba waa khalad waayo waxaynu wax ka bilownaa waana la laayay waa saa sheegaysaan grievanceskan wuxuu ka bilowday from day one aynu isu tagnay waxay u baahan tahay historygaas inta si wacan loo record gareeyo inuu noqdo ka dadku ay dhalinyaradan iyo cid waliba ay ka fikri karto oo dabeetana dadka laga dhaadhiciyo keenina kara in qofka muwaadin lagaga dhigo inuu fahmo historygu wuxuu weeyaan waa dhacdooyin laakiin wuxuu shape gareeyaa futurekeena haddii aanad historygaagu saxnayn maxay tahay futurekaaguna ma saxno mustaqbalkaagu ma saxnaanayo kaa waxaan u haystaa anigu inay one issue ay tahay issuega labaad ee aniga ii raaca waxa weeyaan internal cohesion ma jiro waxaynu u baahannahay in la abuuro internal cohesion oo internal cohesionkaas aanu ahaan hadal iyo namname uu noqdo economically socially politically environmentally intaba dadku ay la yimaadaan fikrad ka duwanta maanta ah oo aynu yoyotanka ahoo adaa wax haysta anaa haysta kanaa lay boobay waxaynu ka tagno aynu eegno sidaynu dalkan u horumarin lahayn markaan waxaan qabaa maalinta ay dadku dareemaan waa inay dadku dareemaan maxay Somaliland macna u samaynaysaa haddii aanay dareemin Somalilandku waxay macna samaynayso maxay kaga duwanaanaysaa dawladihii hore aynu soo maray ee aynu 30 yearska hore ku jiray muxuu qofku ugu hiranayaa muxuu doonayaa waa inaynu waydaa aynu horta abuuraa waa iyana meesha la timaada haddaynan taa samayn oo yoyotanku uu hargeyso ugu fadhiyo oo hargeyso aynu dhaafi kari weyno oo goboladu ay wada noqdaan marginalized dadku dee khaatiyaan bay joogaanoo meeshii loo dhaqaaqay isaga dhaqaaqayaan waayo dee haddaad tii hore ka duwanaan weyday maxay macnoo samaynaysaa inaad mid kaloo aan waxbada soo wadin adigu hoos joogto ani waxaan qabaa inaynu governancekeena hoos u eegno oo weliba decentralization ku samayno oo aynu resourcekaynu haysano qaybino oo dalka hoos u gaadhaan markaasay xitaa macno badan samaynaysaa inaad goosataa what's the point haddii maanta laynu aqoonsado fed baynu iskala daalaynahay wax walba hargeysa yaaliin maxaad macnee samaynaysaa ani waxaan qabaa horta intaynaan goosashiyo sheeko kaleba gaadhin aynu arrintaa decentralizationka wadar ay noqoto governanceka economiga wax kastoo aynu ka hadlaynaa uu hoos u tego oo gobol waliba uu sidaa Ethiopia noqotay isku filaado gobol waliba waxa la siiyana lagula xisaabtamo strong maxay tahay accountability iyo transparency la abuuro oo aanay noqon shilinka la geeyo maxay tahay magaalo kale in iyana la iska cuno aynu systemkan soconaya ee corruptka ah ka baxno dalkana horumar loo sameeyo dadkuna markaas uu aaminaya dhulka oo macna ay u sameynaysaa aan waxaan qabaa haddii aan taa la sameyn inaan macna sameyn and the third issue for me waxa weeyaan malihimba dadka cid baa jiida haddaad Croatia xasuusataan Croatia markay Serbia burburtay Germanka ayaa khasab kaga dhigay in loo qoonsado Germanka ka dhigay khasab haddii aanad haysan strong power ama cid maxay tahay saaxiibo adag oo foreign maxay tahay policy-gaagu aanu ku xidhnayn interestka dunida aanad abuurin interestkii lagugu support gareyn lahaa dee waxa weeyaan iyada qudheedu meel la gaari maysto waayo haddii iyaga powerkii oo dhan la siiyey cid kuu doodo adigana xaggaaga soo marto oo wax kaaga soo jiida waa inaad heshaa taynoo afar waxa weeye cabdiqaadir waxaan ka yar fahmay shared sovereignty-ga inaad leedahay markaa noqoshadii ama dee ay somehow inaynaan sidan ku noolaan karayna ay noqoto inaynu meeshii dib ugu noqono laakiin aniga waxaa ii muuqata adna aad caddaysay xasanna uu sheegay everybodyna uu ogyahay inaanay interested ku ahayn in fact maantay ka xun yihiin 1960 in terms of unification iyo issueska maantay ka xun tahay so why do we want it inagu maxaynu ka doonaynaa
waa inaynu la nimaadno inaynaan uba baahnayn anigu saasaan qabaa wada hadalladanna waa waste of time. And Abdelkader Ba'asai, point of clarification about shared sovereignty, marka less than a minute marka hawsan. Shared sovereignty go umaan jeedin inaynu xaggiida ku noqono. Certain areas oo nolosheena ah oo dhaqaalaheena ah inaynu dee sovereignty ku yeelano. Ya, oo inaan meelaha qaarkood inaan dee anu equal dee partners ka noqono aynu bilmasal tan imika la sameeyey hawadoo kale tan badda cas loo sameeyey coalitionka dee miyaynu ka maqnaan karaa sovereignty-geena baddeena innagaa leh marka waa shared sovereignty ka hadlaya waa taa ee maaha mid aynu xamar ku noqonayno. Okay, and Dr. Goodla siiyo marka hadhow aan soo wareego Yaasiin insha Allah. arrinkan wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya muddo ayaan si gaar ah ula socday su'aalo badan oo asaasi ah baa jiray oo ahaa horta aqoonsiga iyo waxa uu ka soo bilaabmay iyo aqoonsigu wuxuu yahay oo ka soo bilaabmaya falsafadii ninkii la oran jiray Hegel the philosophy ama the philosophy of spirit man flenayd in qofka marka hore isagoo aqoonsado aqoonsiga qofka isagoo aqoonsado baa hadhow toole keeni kara inay bulshaduna ay aqoonsigu marka uu gaadho sidoo kale ninkii kale wada garanaysaan Adam Smith erey caana baa jira oo isticmaalo self interest creates social interest oo wax kasta wuxuu ka bilaabmayaa shakhsiga qofka ayuu ka bilaabmayaa marka hore dadna markaas aad u gudbin kartaa marka bulshada kale waxaan uga jeedaa waxa weeyaan haddii ay inaga dhab tahay inaga in aynu dhisno Somaliland aqoonsi la'aanna waa la noolaan karaa Soomaaliya oo aan la hadlinna waa la noolaan karaa waxay ku xidhan tahay waxa weeyaan waa bulshada iyo dadka waddankan iska leh maanta dii Ilaahay inagu abuuray halkan aynu ku noolahay adduunyada halkan aynu kaga noolahay inagu baa markaa horumar iyo aqoon iyo in aynu hore u socno inaga samaysan karnaa 30 sanadood in ku dhow baa laga hadlay Somaliland laakiin haddana waxyaabo badan oo meelo badan oo waxa jira maaragtay u baahan inaynu weli culayska aynu saarno marka waxaan ku soo gabagabeynayaa waxa weeyaan inagu marka hore aan is aqoonsano oo aynu kor u qaadno aqoonteena iyo matalan imika macadkan oo kale barnaamijkan oo qudarrinta barnaamijkan aan aad ugu farxay weeyaan adduunyada kale marka la eego meelaha ay aqoontu macna sameynayso marka la intaas oo macad baa jira intaas oo institute baa jira Hargeysa laftigeeda marka meelaha qaarkood dadku ay qalad gaabeen in la kala taageero la yiraahdo aniga deegaankayga weeyaan deegaankan aan leenahay waxaan kula talnaa lacagta faraha badan ee la khasaarinayo ee dawladdu ay ku bixinayso shirbeeleedyada ay ku bixinayso maxaa la yiraahdaa siyaasadda qalafsan ee xisbiyadu ay isticmaalayaan in lagu maalgeliyo aqoonta macaadiyada cilmi baarisada intaba Somaliland imka intii ay jirtay anigu intaan ogahay dad baa jira ajnabi oo inoo yimaado wax inaga qoraa maanta maxay ku taala haddii Somaliland waxaynu dhisanay dimuqraadiyad baan dhisanay doorashooyin baa la dhisay dawladnimo baa la dhisay wax baa la dhisay nin ajnabi oo madow iyo cadaan ku doonaba ha ahaadee waddanka yimaada ayaa waxa uu baabiya nin baa barnaamij buu ku soo bandhigay London inkastoo aan anigu ka qayb gelin laakiin waan xogtaan helay Somaliland wuxuu ka soo qaaday 20 sano ama 30 sano wixii la soo dhisay inaanay waxba ka jirin oo Somaliland ay reer gaar iska leeyihiin oo inta badan waad maqasheen beesha dhaxaale oo kiima buug loo beddelay aqoon loo beddelay haba jirta hadii doonto laakiin ujeedadu waxa weeyaan aynu dhiirigelino dadka aqoonta leh aynu dhiirigelino macaadada aynu dhiirigelino cilmi baarisaha aynu dhiirigelino jaamacadaha jaamacadana maxay soo saar waayeen macaadiyo iyo meelo laga sameeyo cilmi baarisyo laga sameeyo oo muuqda ama barnaamijyo ama research ama barnaamij marka aynu talabada culayska aynu saarno waan ku taageersanay kulli challenge ka uu sameeyay xildhibaan Cabdiqaadir Jidde aad u mahadsantahay wax yar baan waxaan anigu aan isleeyahay wax yar bal eegtid inaynu leenahay elite ku filan inuu ciyaaro roolka
looga baahan yahay elite-ku inuu ciyaaro muddo dheer baynu ka soo jirnay muddada dheer institutionskeenu dee quality kasta ha lahaadeen dad badan bay soo saareen waan ku faraxsanay dhammaanteen inaynu nahay productigii ka soo baxay dee institutionskeena elite-ka waxaan is leeyahay sida dee eliteyada ay yihiin ee political eliteyada business elitiska waxyaabaha eliteyada dee ka jira dhulka kale ma nihin dee dad waxaynu nahay aan roolkaa weli u bislayn oo aan u diyaarsanayn waxaan is leeyahay waa initiative-kan isriya bay ayaa imika aan ku tilmaami karaa inay inoo yihiin bilow mid kalena cabdiqaadir waan ku sabooraya oo laba shay oo muhiim oo uu halka soo jeediyey ma hayno charismatic leader ma hayno waxa kaloo elite roolkii buuxiyana ma hayno waxyaabahaasi waxay discourage garaynayaan in mustaqbalkii si fiican oo magaranaysaa inuu kuu muuqdo mustaqbal fiican oo dee nayaarli inuu kuu muuqdo qofka magaranaysaa waxaan mustaqbalkeeda eegaya way discourage garaynaysaa arrinta matalan imika marka wadcigeenna la eego waxaynu ka sheekaynaynaa waa dowladnimona dee waa dhaxalka waxa ugu weyn ee ummadi ay geen garayso ayay dee dowladnimadu weeye innaga iyo qolada kale ee koonfurtaba anigu waxay la tahay in labadeennaba aynu inay khasaare inugu ahayd in dowladnimo layna siiyo innagoon wixii aan dadkeedii haynin oo aan bisaylkeedii lahayn ayay inugu soo luntay waxa kaliya structure-ka kaliya ee Soomaaliya oo dhan ay haysaa waa structure qabiil structure-ka qabiil iyo dowladnimaduna dee laba wuxuu aad iyo aad isu diidaya way waxaan jecelahay marar badan baan ka fikiray arrinta shared sovereignty waxaan warnimayo sida bareesada loo isticmaalayo xadhigga leedhka loo gashanayo isla dhimatee bal wax bareesadaas oo kale bareesadaasaan ku metelay arrintaa uu cabdiqaadir uu share sovereignty yidhi bal wax sovereignty-ga sideeba loo munaafacaadsadaa iyadoo aan la isu dhibaataynoo la isu dilinoo xasaradii iyo dee dhibaato la kala kororsan sideebaa loo munaafacaadsadaa dowladnimada ilaa hadda soomaalida oo dhamme hal cashar bay qaadatay casharka kaliya ay qaadatay waxa weeye cashar la yidhaahdo dictatorship meeshaa gaadh markaad gaadhana ku xukun wixii maskaxdaada ka yimaada casharka kaliya inu qaadanay cashar labaad waa inoo weheliyaa magarase meel kastaba aan joognay magarase ma jiro marka waxaan is leeyahay bal niyow intaynaan meel kale gaadhin critical thinking aan samayno aan maskaxda waasicino aan duruufaheennan aan si dee waafiya aan uga fakarno wixii ina anfacayo waxaan ina anficin wax dee magaranaysa dee wax aayado samaawiga kama hadlayne danteena iyo masaalixdeennaynu dee ka sheekaynayna marka optionska aan badsano sidee baan halkan hore uga tds sidee baan dee tallaabooyin hore oo dee dowladnimada ah sidee baynu u qaadnaa ilaa waxaynu ka hadlaynaa dowladnimo baan ka hadlaynaa magaranaysaa sida aynu dadka ay wax ugu tarlahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa yaasiin yuusuf anugu waxaan soo jeedin lahaa uun arrin runtii aan islaahay waa halkay sartu ka qurantay tahay waa arrin aynu dhaadanahay oo aanan ogsoonayn oo maxay ahayday waa arrintaa wax waloo aynu ka hadli karno oo tan imika ka mid tahay ay dhibteedu tahay runtii waynu naqaanaayo dhaqan ahaan baynu leenahay intan somalilantan ayaan hubaaye waxma odorosno waxaanu xariifin ku nahay in marka wax dhacaan aynu dadabasno oo proactive minihi reactive baynu nahay waxaa la arki karaa intaasoo reerooda hub isku urursanaya lagama hortagee maalinta isku dhuftaanbaa inbaa la xaliyaa hawshooda la galaa inta hubka isku urursanayaan la arkayo ninaba kama hadlo qadiyad waloo dhacdana waynu arkaynaa xanuunkayna keenaysa laakiin lagama sii toro tan ugu dambeysay oo wada hadala iyo dhibteeda waa saa maxay ahayday mudoonuhu sheegay cabdiqaadir indifferent buu tahay horta maxay ahayday reconfred walaa unity walaa maxay ahayday waxay doonayaan iyagu runtii ma jirto inaga ahayd inaynu wax doonno inaguna ceebteen waxa weeyaan dawasa maanul bo ilaa
si la sheegay 6 sanadood ama 10 sanadood ugu dambeeyay maalmo buu la tagay waxa weeye last minute kun baa la raraa anigu waxaan ku dari lahaa su'aasha xildhibaan Cabdiqaadir inuu weydiiyahay projectiska noocana waxaa guide gareeya elite marka anigu waxaan ku waafaqsanahay dadka dooda oranaysa Somaliland iyo Somalia elite male okay individual elites way jiraan ha noqdaan spiritual elite ama political elite ama economic elites waa individuals laakiin class la yiraahdo waa elite oo common interest leh oo similar ideology leh ma jiraan Somaliland iyo Somalia toona okay maybe 1960 way jireen oo waxa unify gareynayay nationalism inay Soomaaliya isku midoobaan in Soomaalida maqan la raadiyo ayaa kuwa koonfurta iyo kuwa jooga waqooyiga unify gareynayay qaarkiin way ugu waafaqsantihiin I'm not a student of history laakiin waxaas 1960 markii Somaliland ay tegaysay koonfur division u dhaxaysay elite-kii Somaliland ayaa degdegii in koonfur lagu biiro kind of maxaa la disorganized in lagu biiro elite-ka division u dhaxaysay oo koonfur loo kala cararayay ayaa Somaliland ka jirtay maantana consequences-ka ilaa imika aynu la noolnahay waxa keentay elite-kii Somaliland oo divided or individual interest waga riixanayay wadankii uu burburay elite-kina uu burburay marka waxa dhacday elite-kii wadanka way ka tageen qaarna daabay noqdeen way weynaadeen kuwana way dhinteen intii wixii ka dambeysay after 1991 dhalinyarada imika soo baxday ama dad baa soo baxay ganacsataa ama religious organizations waa individual elites laakiin class ma jiro innagana xaggeena ma jiro iyaga xaggoodana ma jiro waxa weeyaan stadium berido sameynay baa dadka waxaan weydiinay su'aashan Somaliland elite-keedu waayo dadka waxaan weydiinay middle class-ka 20 qof baan wareystay waxay isku waafaqsan yihiin Somaliland elite male bimacnaa elite waxaa ka wadaa group common interest leh that people look up to dadku ay eegayaan oo dadka midayn kara male marka waxaan misanahay dibtu waxay ka jirtaa ilaa elite-ka aynu helno oo elite class ay soo baxaan common interest leh dabadna interestigooda unify gareeya dabadna dadka kalena ku guide gareeya waxaan misanahay waxay iska noqonaysaa inay foreign driven ay iska noqoto arrintan wada hadallada iyo waxan marka waa pointiga waxa weeyaan we don't have elite class and that's the problem waad mahadsantahay waxaan qodobkaas habaqlahaad ka dhawaajisay paperka haddaad eegtid haphazardly baan ugu qornay oo ahayd runtii inay si fiican u matalayso xaaladda maanta iyo shalayba aan siiyo professor cabdi cali jaamac macalinkiin marka waxaan filayaa waxa weeyaan sidii dee road map loo heli lahaa waxaa ugu muhiimsanay waxaan odhan lahaa marka ugu horeysa horta intaan road map kala raadin road mapku uu fudud yahay laakiin waxaa loo baahan yahay aniga aragtideeda horta marka hore in waxyaabo badan laisla meel dhigo qaarkood runtii dowladdeena Somaliland siyaasaddeeda bay ka mid yihiin inkastoo aan qoraal ku arag haddana waxaan arkay iyagoo ku khudbadaynaya madaxda ugu sarreysa waddanku matalan kale inay qiraan inaynu ahayn historyga inaynu ahayn two independent states inaynu kala ahayn markii hore oynu dee wax facts baan ka hadlaynaa factska in la isla qiro maxaan ku dhahaa laba gumaysiina kala gumaysan jireen dabeedna aan isu tagnay ya waxaan ma qof facts ka dafirsan aniga waxay la tahay markaan dhahno halkaan noogu jooji hadduu facts ka dafiro qofku ya because qofka facts dafiray waxaan ku wada hadlaynaa marka taas waa mid waana ku jirtay siyaasadda dowladda runtii waan ku raacsanahay ta kale waxa weeyaan tan xasuuqa oo si fiican loo dhigay runtii inagu dad suuqa waxaynu ka maqalnaa dadkeena dee aan intellectualiska ahayn ayaa dee yidhaahdo waana la xasuuqay halkaa ka bilaabo marka inagu inaynu dhaliilo maaha dadkeena waa inaynu u qorxinaa doodii u hagaajinaa xataa waxaan arkay siyaasiyiin dee iyaga laftooda yidhaahdo waana la xasuuqay iyaga laftooda dee caamadu bay ka mid yihiin marka qolada culimada wadaadaduna waxay dhahaan waa caamu ay yidhahdaan marka inagu qoladii halkaas baan ka bilaabay uga jeedo inaynu dadka iska weynaysiinayno uga jeedo marka dadkeenu hadday sidaa doodda u dhigeen innagu waynu qurxinaynaa doodda waxaweye doodda waxaynu qurxinaynaa si wax u tarta innaga iyo Soomaali oo dhan waxa weeyaan in la isla qiro intaynaan wada hadal iyo sheekada iyo road map iyo waxa isla gaadhin in Siyaad Barre iyo Kacaankii in
ay maxaan ku dhahaa taariikh ahaan inay dembiilayaal yihiin waddankanna ay ka galeen khalad la wada condemn gareeyade ya oo aanu de halkan ii soo fadhiisan mid aaminsan ba Siyaad Barre inuu hero ahaaba de maxaa baan kula hadlay wuxuu aaminsan yahay inuu Siyaad Barre hero ahaa ya that means we don't share values maaha qabyaalada waxa values ma share gareyno qofkan ya moralist ma share gareynaba ya haddii madax la doonayo xataa anu waxba kama qabo mid Siyaad Barre la qolaha hadduu madax noqonayo miyaanu jirin qof Siyaad Barre madax la qola ah oo aaminsan laakiin inuu mujrim ahaa meel helay ya ka horta de wayna kuwa aaminsan inuu hero yahay de horta way disappear garoobaan oo de taariikhdiiba waxaana koosa maxaa loo galay bade maxaa wadan dhan loo burburiyey ummadda loo baabiyey aynu baaba'nayba haddii marka de waqtiguna uu yar yahay baan filayaa waxa weeye aan ka gudbay qodobka wala fahman maaraya marka halkaas ay hoos imanaysaa ciwaanka weyn ba hoos imanaysaa xasuuqeeni iyo xasuuqii dadka kala wada miyaanu mudug miyaanu xasuuq ka geysan iyo majerteenia miyaanu xasuuq ka geysan de Soomaaliya oo dhan marka xasuuq u geystay human rights ka meeshu ka dambigu ka galay baa imanaya de laakiin adigu inaad kaliya tahay aanu xasuuqay taas waxa weeye waa dood jilicsan hadda la tagto fagaaraha waa dhab laakiin dadkeena aan intellectuals ka baa yiraahdo marka inagu inaynu iyagii short ku celina ma waxa qaba taasiinay xagga ka timi ba qaba xaggaasay ka timi dibna inagii waa leeyna jiheeyo dadkeena leeynagu jiheeyo dib leeynagu jiheeyo ya marka de ma garanayo makiinadan idinku shaqaysanaysa maskaxdiina ku shaqaysanaysa taasi waa taas marka aan waxa qaba soo gaabinaya marta inta ku dheeraadee road map ku fudud yahay haddii inta la isla garto waxa weeyaan road map ku aniga say la tahay weeyaan waxa weeyaan waxa ka bilaabaysa war horta separate meenu kala joognaa bise weydu midownaa iyagu wax leeyahay midoona sama inagu wax leeyahay horta aan kala joogno ya hadhow haddii la doono referendum iyo waxa la qaaday laakiin aan kala joognaa midowno separate or unite taban ku bilownaa labada ya marka mid aan waxa qabayn halka ka bilaabata sheekadu de toos de loo gala de maxaa la wareegaya separate or unite horta meenu kala joognaa bise isku biiraa referendum ka dambeeyay Soomaalida referendum ka dambeeyay halkeen ka bilownaa horta labada horta way ka bilaabataa dabeedna de halka concession de cidda de iyagu unite way ka bilaabayaan Soomaa inaguna stay separate aynu ka bilaabaynaa horta aan kala joognay aynu ka bilaabaynaa horta ay aqoonsatay marka hore horta waxaad aqoonsatay inaan wadan ahay ila de wadan baan ahaan jiray oo waxaan ku imaano wadan ay aqoonso ya dabeedna marka kadib aynu wada hadalno marka dabeedna referendum ka yimaado isla wuxuu ka bilaabaya ma horta way isku jirnay oo de way burburtoon meeshii dhago isku jirnay isku jirkii ha ku socoto sheekadu dabeedna referendum anu waxa marka halka ka bilaabato dabeedna sida Cabdiqaadir Jidda sheegay xildhibaanku concessions marka ka bilaabaan marka ninka tiisa la qaato de concessions badan ha sameeyo marka caasibadu xaqiisa haato wixii sheekooyinkii aan akhri jirnay assalaamu calaykum way waad mahadsan tahay aan deeqasiyo sanad 2019kii waxaan ka mid ahaa research la sameeyay oo laga sameeyay xagga higher educationka jaamacadaha oo dhan aan ka qayb galay aniga iyo waxaan ahayn dhowr qof oo kale jaamacad Ingiriiska sameeynaysay researchka su'aal baa ku jirtay waxaan u gunlay waxa weeye youthka waxa la yiraahdaa Somaliland youthkeedu waa between 60-65% markay hay'aduhu statistics-ka qaadanayaan kaba soo qaadba 60 inay yihiin su'aashu waxay ahayd what value added haddii maanta Somaliland la aqoonsado ay ku keenaysaa as dhalinyaro ahaan waxaanu sameynay 420 dhalinyaro ah dhalinyarada waxaynu qiyaanastay 18 jir ilaa 35 laakiin anagu waxaan ku joojinay 25 oo high school kan target gareynay ayaan dar waxay ka taagnayd oo aniga igu noqotay surprise in wax ay taabtaan oo maxay horta u tahay aqoonsiga Somaliland oo soo kordhinaysa dhalinyarada Somaliland ay sheegi waayeen shaqan ku helayaa lacag baa noo furmaysa waan dhoofi karaa marka waxa weeye yani maba fahmayaan baba ujeedada maanta hadii aqoonsi yimaado maxaa nolosha dhalinyarada waana ayaan way jiil ba ka sii baxaya jiilkii fahansanaa sababta Somaliland goon isku taaga u qaadatay way sii dhamaanaya jiilka u badan soo koraya waa dhalinyarada haddii inaga laftarkeena gudaheena si saacadiyo dhowr qof ka dhawaaqeen aynaan garanaynba horta maxaynu uga baahanahay isku taaga oo ni dhalinyaradeena fahansaneen ay ku aaminsan yihiin container ay ku xidhan yihiin de horta maxaynu dibadba ka doonaa wada hadal dibadeed in horta waxbarashadii la soo dhaadhiciyo oo dhalinyaradii wadanka laga dhaadhiciyo maxay faa'iido u tahay
haddii ay tahay maxaan ku dhahdaa federalism hadday tahay maxay noloshooda ay ku soo kordhinaysaa marka horta waxaan weydiinayaa maxaan ku dhahdaa xildhibaanka cabdiqaadir maxaa hoos loogu soo dhaadhicin waayo horta innaga laftarkeena maxaynu uga baahannahay gooniskuteega aynu dhallinyaradii dad badan in laga dhaadhiciyo mayna habboonayn horta intaynaan dibaddaba u bixin waad mahadsantihiin mustafa sharmaarke ayaan siin doonaa insha allah magacaygu waa mustafa sharmaarke waxaan u mahad celinayaa isir think tank iyo dhammaan howlwadaynadeeda xildhibaan cabdiqaadir jirde macalin professor cabdi iyo guud ahaan dadka kale ee jooga asxaabta marka economic baan bartay ama dhaqaaluhu markaa bulshada ku wareega bulshadoo dhan buu dhex galaa waxay ku sheegaan inay tahay maadada ugu muhiimsan social science-ka sharcigu galaa siyaasaduu galaa society-gu galaa sociology-gu galaa psychology-gu galaa wax walbuu dhex galaa dadka waxaan isku dayay inaan address gareeyo waa maxay Africa sababta dhaqaalaheedu uu dhaqaaqi waa iyadoo ah the richest country oo ay ku nooshay the most painful poverty dabadeeto way ugu adkaatay taas waxay u baahan tahay xitaa inaad taageero hesho marka arrimahaas waxay bareen dad aad u tiro badan iyo su'aalahan weligeed isweydiin waxaa ka mid ah laba su'aalood dadku ku soo wada celceliyeen labada su'aalood waxaa ka mid ah inaynaan inagu investments ku samayn dhexdeena Dr. Xuseen Bulxan si wanaagsan wada garanaysaa ayaa waxaan ka helay article aad u cajiib arrimaha ka hadlaya article-kaas halkan aniga ku qoray inta cinwaankiisa xasuustay waxa la stages of colonialism in Africa dadka wuxuu ciwaan hoosaad ka dhigayaa from occupation of land to the occupation of being Africa inta dhulkii laga qaatay ayaa xorriyad la siiyay kadibna jiritaankoogii baa la qaatay saa loo qaatay first languageskoogii baa la dilay way dhinteen Djibouti aynu arkaynaa identity male secondly historygoodii baa la dilay wax historygu jiritaan Marwe Saadiyaa sheegtay historygu jiritaankaaga sheegtaa waxay decide garaysaa mustaqbalkaaga waxa la sheegaa Somaliland Saada Mira gabadh la yiraahdo mise Saada Mira la yiraahdo archaeologist ayaa waxay tiri waxa la helay weel Somaliland laga helay oo dadkii dhulkan deganaa lahaayeen oo Shiinaha laga keenay oo ka horeeyay intaanu Shiinuhu ganacsiga la gelin Yurub historyga ma hayst Bershiyaanka xiriir baad la lahayd walaalka Nairuuska iyo dabshidkii wax naga soo galeen faraaciyiinta xiriir baynu la lahayd waynu jirnay magaalooyin dumay waa u bakhlaaq yaalay see lagu dumiyay markaa waxa weeyaan professorka la yiraahdo Cabdiraxmaan Axmed Xuseen I think inuu jacadanaysta hargeysa hayo qaybta postgraduate studies ayaa wuxuu qoray maqaal aad u cajiib oo dhawaan hela oo la yiraahdo the challenges and opportunities wuxuu leeyahay iwaan hoosaad aad u cajiiba integrated import ideas waxa lagu keenay imika wax soo celcelinaynay intellectual iyo elite dadkaasi ma jiraan adeer waa nin isku haystay inuu New York joogo oo Burcarabi in New York looga dhaqo qofku educated uu noqon karaa laakiin qofku intellectual ma noqon karo the most intellectuals waxa ma bar bariwan buug akhriyay the most intellectuals buu soo qaadanaya dadku waxay leeyihiin human modern history dadkii ugu saameynta badnaa Prophet Muhammad waxa uu qorshiray kulli marka waxay leeyihiin dadku wax soo qaadanay Abraham Lincoln iskuulka markuu dhigan jiray saaqid buu ahaa xitaa jaamacadaha ma tagi jiray in macnaha haysadaha jaamacadna muu gaarin ba college jaamacad muu gaarin marka anu waxaan aaminsanahay adeer civilization iskeeni iyo waxaan iyo Afrikaanka dhan markii la dilay laguna dilay NGOs development humanitarian charity faith waxaan aqaa'id waa la nagu dilay waxa soo waxaynu maraynaa inaan soo kooban rabo masaajid 700 sano jiray inta la dumiyo iyadoo ku kale lagaaga dhisi lahaa oo taariikh dhan hagooga in kan oo kale lagu dhiso kadibna ku qosol lagu dhac hadda history buu la dhintay imika waxaan maraynaa masaajidadeeni aynu naqaanay masjid Xawaadle iyo masjid Adiina in Ibn Umar iyo Ibn Ali loo bixiyo si aad isku weyd berdawid bisha Mustafa wuxuu yiri afka Soomaaliga haduu dhinto ummadnimada raacaysa buu yiri okay marka waxaan uga gol leeyahay adeer hadii la ina caawiyo
oynu weli isaynu u qaybsanay caawintaasu keliya isku raacsannahay ma heshiinayna aynu teena horumarsano aynu sheefgarayna teenan sidii dadkaa hore ka wada dhaqan waay waxaan siin doonaa sucaad iyo kamaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وسعاد إبراهيم ورتوضات حساب بدن ورونهانتي وأنا لتبي فقارياش إنه عننا ولو بهنيها وإليت كان إنه دا رادين إن هل كان يكسو لحب حكاريان هدي أن أركتذ الله يسوي درسن إليتكم ما أبورمو أركتبا أبورتا أركتذ نوع كتما دا فقارياش مركا هرت كل يعني وحنا هدتك آمنسن in laga baxo qoqobadaha xaafadaha oo la sameeyo space-ka dadku aragtida ay isku weydaarsadaan oo ay ka soo baxaan dad hadhow toolo wax riixi karaya taas waa mid talabaad eliidku ku samaysmi karayo waxa weeyaan cabdiqaadir baa xildhibaan cabdiqaadir bayna challenge gareeye dad badan oo PhD ah baa fadhiya meesha iyo master iyo horta aragtidaadu haddii aanay qornaynba sax iyo khalad maad gudbin wixii aad aaminsanayd marka eliid ma abuurmayo ilaa qoraal la sameeyo oo dadku waxay fikirkay aaminsan yihiin mawduucan ka soo qaadkanayno ka hadlayno marka waxaa dhici karta in dadka loo aaminsan oo maaragtay aan hore u dhiiran inay iyaguna dhiiradaan laysuna yimaado marka horta qoraalkuna waa muhiim oo waxaan dareemayaa inaan qoraal badan research institutions ka qandaraaska soo qaada mooyaane qoraal shakhsiyan oo aragti xambaarsan kaana muu inaga soo bixin marka qolyihiinan idinkaa wadankii u soo kacayee waa inaa horta kaana madaxa ku haysan si aragtidiinu dibadda ugu soo baxdo su-aashan haddaynu hortaale wada hadalku mar walba wuxuu ahaa madhalays bu hawaynu iska arkayna waa position buu professor maxamuud sooma ayaa position buu taagan yahay negotiation keenu oo iyaguna waynu garanaynaa inaanay halkan ka dhaqaaqahayn inaguna goon istaag kama dhaqaaqayno mana hayno third part negotiate gareeya oo meel dhexe yimaado wax keena markay labadaa kale istaagaan way adkaanaysaa mar walba kala kac buu noqonayaa waxaanay u hirgelinna way ka mid tahay wada hadalladeenu iminka kuwan third party ku dhex jira ay mar walba ugu warwareegayaan xeebta developmentka iyo aidka iyo sidaynu wax ka nidhaahnaa oo waana negotiationka marka la gelayo horta marar badan stage waa loo qaadi karaayo markay deadlock gasho waa la odhan karaya ha laga bilaabo waxyaalaha khafiifka dabadeedna waxa dhexe lagu xijiyo dabadeedna meesha adag ha la gaadho anigu waxaan u qaatay inay iminka kaa iyagu qaadeen laakiin inaga mar walba waxay naga maqan oo aan dareemaynaa kulligeenna aynu ka wada dhawaajinay inaanay wax badan inoo caddayn aan ka ahayn gooni istaaga approachkaynu qaadanayno iyo positionkeenu waa inuu lahaado siyaasad dabada ka riixaysa oo qoran iyo dadkii siyaasadda hagayay mar walba khasab maaha inay dawladdu keligeed waxagto dad badan oo aqoon-yahan oo uga fara dhuudhuuban baa jira oo xidhiidho leh baa jira la adeegsan karayo aragtidu dadkay ka timaadaa dawladda kama qofku markuu position of power fadhiyo wax badan kama fakaraya maamul buu mashquul ku yahay laakiin adeegsiga dadka kala keeni karaya marka horta inagu inaynu dib isugu noqono haddaa xusuusataan wixii ka horreeyay 2000 ka shirkii UN Ingiriiska lagu qabtay westka riixaya waxay u riixayaan new deal-kay sameynayeen that's the only reason ay isugu keeneen new deal-kay wadaan dabadeedna waxay yidhahaan hala wada keeno bahashi halka ha laga galo haddana soo cusboonaysan inaanay serious ka ahayn waxaa ku cadaynaysa dawladaha Southku markay dhacayaan baa la bilaabaya maxaa loo bilaabayaa markay dhacayaan miyaynaan inagu position xaq u lahayn inaynu nidhaahno oo hogaaminteenu tiraahna anagu dawlad dhacaysa heshiis la geli mayno lana hadli mayno de waxa hala bilaabo waqti munaasabkeeda in la eego approachkeeda in la eego siyaasadda hagaysan dadka hagaya in la eego intuba waa muhiim marka waxaan isleeyahay Somaliland 2000 wixii ka horreeyay marka shirka UK waxaynu islahayn weligeanba proactive maynaan noqon waxaynu islahayn marka nidaamka dawladnimada hagaajisaan oo democracy-gaynu moodayna inay noqonayso kaarka aynu ku helayna aqoonsi dabadeedna waxaynu xoogga saarnaa inaynu wadamada kala gadisan aynu
aynu xidhiir la samayno iyaguna waxay dib inoogu soo celiyeen oy aad xoogga u saareen ay yidhaahdeen mar walba waa inaad la hadashaan soomaaliya soomaaliyana markii dowladnimada waa cabdiqaadir waan ku dhaha kaadhkii baa la siiyey meel bilaasha baa laga siiyey meel aan waxba ka jirin ayaa waxaa la siiyey awoodihii dowladnimo oo saxa dabadeedna meeshii way kugu wareejinayaan wixii bay gacanta ku dhigeen waa la aqoonsaday deyntii baa laga dhaafay kana way kugu isticmaalayaan awoodahoodii bay kugu isticmaalayaan marka inagu waxaynu ka geli karnaa inaynu ka dhiidhino inaan awoodaha laynagu isticmaalin dib uga dacwad uga furanno inaan kaarkaa la isticmaali karin soomaaliya labay ahayd laba isu yimid 60kii way kala tagtay way kala socotay iminka waxaa loo baahan yahay inaynu nidhaahno annaga kaarkaana laguma xisaabinayo meesha doontaan kala baxay laakiin annaga kaarkaana laguma xisaabinayo oo aynu inagu approachkeen iyo dariiqeena jeexano proactive-na noqono inaguna hagno aan layna hagin khibradaha wadamada kala googo'ay insaani loo daraaseeyaa muhiima afrika iyo carabahaba way ka dhacday intaynu dee jirnay bay hareeraheennana ka dhacday daas in la eego waa muhiim ma legal baa la raacay ma channel kalaa la raacay taas waa muhiim ta kaleen isleeyahay innagay muhiim inoo tahay waxa weeye in la helo third party waxaan dadkan negotiationka samaynaya positionkoodu waa maxay haddaad qof markii horeba unity aaminsan aad miiska uu kuu soo fadhiisto ku gaadh gareeya iyaduna khatarteeday leedahay ma leedahay adiga cid ku riixaysa oo ajandahaaga dabada ka riixaysa sida South Sudan iyo meelaha ka dhacday aan kamaan la siiyo dabtana xagga labada qof ee ku dambeeyay doona Cabdiqaadir baa inoo xidhan markaa bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaantiin waan salaamayaa dhowr qodob kooban baan doonayaa inaan yar dul maro midoo yar waxaan isleeyahay Somaliland halkan imika taaganahay aragtida waxa tahay in marayno meel ay sharciyadi muhiim inoo tahay يعني وحي بيون شرعيات بكوس هي اللي قبسن كريو دون على سوق قبطي هدي انستيشن بيلدينج كيتاي هدي دورشوين اللي قبطتاي هدي لكن يمكن استبس كانوا يلا يكو حتى قال دلولوين كو جيران waxaan isleeyahay in state full ahla noqdo waa muhiim ka marka koowaad waxa muhiim ah inaan ka duulin waxba uga ma baahni sharciyad iyo adduun aynu ka duulno inaga u baahan sharciyad international inay helno hadii heshiisiye tahay hadii horumar tahay hadii dhaqaale tahay hadii nabadda dhexdeena tahay hadii talabaad deeqa ayaan ku waafaqsanahay horta waynu goosanay mooyaane ma jirto wax ka hooseeya anu iskuulada primary dawladda marba wax ka dhigi jiray de manhajka kuma jirto sidoo kale ardayga imika 8 ka ah yani de 8 waa class sare aad weydiiso waxa laga yaabaa inaanu garanayn ba 8 wixii jiray baxta ma haba inuu garanayo sababta loo goostay haba dambayse wixii dhacay iyo duruufihii jiray inaanu garanay marka waxaan isleeyahay taasna gaabis badan baa ka jira oo dhinaca manhajka iyo in dadkii oo xilliwaad ka mid ahaa xogogaalka oo ahaa markii ay Somaliland goosatay ay soo dhaadhiciyaan muqdisho oo kale waxaan isleeyahay hal arrin bay naga duwan tahay oo waliba aaminsanahay muddooyinkii u dambeeyay inay develop garowday dhowr jeer oo tagay aan dareemay taas waxay tahay dadka shacabka caadiga ah reer muqdisho waxa la dareensiiyay midnimadu inay tahay national interest يعني سووا بركبوا حوارك يا إلا كلا جوستا أمن قومي جيني خطر كتاعي عدو إنه كسو قلي هالكاس إنسان مع المدى يدعو عنتي إن قضبوه هيستا أنت دورانها أتكادن هذه لا ضد لكن أتليس وحو يقانا إنه وحنا national interest كي Soomaaliya أي خطر كتاعي لك لو جاي أمني غيرك لكن إنك Soomaaliya لا حلقة بينانو انتهين تان وده هذا الله دوينا يهين initiative كإيمانا يا local كواحد سلسلة صورة قلي ميسست الدنيا ده مكمان تو طالبة كراجنا inay Soomaalida la isu sii daayo initiative Somaliland iyo Soomaaliya ka yimaadaan South Sudan lafteedana initiative gudahooda ka yimaado caynkaas muu jiray wax Norway iyo Mareykan u baawateen South Sudan goodo qaybta waqooyiga waxa la gaarsiin heer ay qancaan ay markaa go'aansadaan inay iska fasaxaan markii khadiyaan laga dhigay meel kasta adduunka iyo ilaa madaxweynaha dambiila laga dhigay yani inuu khadiyaan istaago yiraahdo anu waxaan joogay South Sudan markii xafladii ay xorriyadda ku qaadanaysay khudbadu ka jeediyay madaxweynuhu yani waxa dareemaysay inuu qasban yahay oo yani wuxuu ku baanayay Obama iyo Ban Ki-moon oo anaga soo sii deynay South Sudan yani badda kala dhaco kale wax macnaheedu yahay waa taas si uu ku dhahaa anaga naga qaado culayska oo wixii culays arintan ka wax laga shaqeeyay baa heedo wax initiative iyagu ka yimaaheen
inaguna ma haysano sida aniga ii muuqata cid ka shaqaynaysa gudaheena imika oo arrintaa u diyaara bale waxaaba laga shaqaynaya taa cagsigeeda ah in la isu keeno ka assignmentka inoo yaala arrimaheena dibadda uu ka adag yahay kaa South Sudan in dadkan hawshan ku jira la dhexgala taasna waxay u baahan tahay siyaasadda elite-ka qolo uma baahna ee siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka ay u baahan tahay inay saameyn yeelato oo ay arrintan ka shaqayso intaa xildhibaanku sheegay safrantiga in la wadaago aan waxaan aaminsanahay inay tahay arrin muhiim oo u baahan in la sii wadwado oo tusaale ahaan dee safrantiga hawadana ka mid ah marnaba inagu intii ay Somaliland jirtay siyaasadeedu waxay u muuqatay inay yara gabil dhacdaynaysa arrimaha dibadda oo tusaale xitaa ilaa cigaal marka laga soo bilaabo ilaa uu xariisto xildhibaanku bariga xogaal buu ahaa marna cigaal wuxuu buu taagnaa adduunyada dhabarkeena oo sii jeedisay maxaan yeelnaa kursiga Soomaaliya ee boorka ka tubanno marna wuxuu been lahayn war ma qofka u dambeeyay tagayaan anagu hayxtay dadku hadda wada tagtaan riyaalaha haddana isna siyaasaddu kale waxay ahayd in diiday oo yani xitaa inuu iska ilaaliyo inuu hadday hotel isugu soo galaan qof Soomaali ka soo inuu salaamo madaxweyne Silaaye isagu haddana siyaasad kala saddexaad buu leeyahay ma aqoonsigeena Muqdisho yaala oo haddana wax intaa dhaafsiisano ka soo hooseeyaan jirin madaxweyne Biixi iyo tii riyaalo isku yar dhex jirto wadaabaan is leeyahay oo diideediina dhanka haddana aqoonsiga Muqdisho yaala ka marnaba ma jirto siyaasadda arrimadeedoo in aynu goosanay halkeen u marnaa ay caddahay ka taalafteedu waxay u baahan tahay in aynagu ka duulayna inagu sharciyadu u baahanay South Sudan taadan ku noqdo waxyaabaha la yaabay bariga wax kamid ah yani iyadoo referendumkii la qaaday oo la goosanayo oo waxa loo taagay yahay madasho ay tahay South Sudan ay xor tahay haddana Umar Bashir wuxuu ka soo degay soo madaxweynihii Suudaan isaga protocolka lahaa isaga la soo dhaweeyay isaga loo kacay isaga ninkan madaxweynaha noqonaya marka dambe isagu meel hoos halkaas u salfakir iska fadhiyay way madaxweyne ku xigeen bisoo arkay caalanka Suudaan ba ka taagnaa in tariga lagu dhuftay baasaboorka Suudaan buu ahaa waxaan socdaana waa goosashadiiba on the spot oo meeshii taagan baa la yiri baarlamaanka baa fadhiisanaya isla masraxii aanu taagnay ayuu baarlamaanka fadhiistay markaas la yiri codha loo qaado referendumkii la saxeeyo saacad loo qaado markaas la yiri goosatay sharci noqotay يعني هو شرعه ما روح حصر رواه يرواه لكن حتى ندي شرعيته وحنا نيجي حريه وقطع بركة سنة يمكن وصاعد تعالى كل ده شوكي كلا صار مدحوينين هالكيس صفر السلا داري كشرعيته وحنا أركانه إلى هاي أرين مهمة أو صوت كأنه جا حرن أرينتها إنترسكا تابده وحلبانك وشاقي تهوده وشاقي حتى هدي نقول يصيدوا مجا الصومالي لجوه هوستيرو يسامي للاقة يبصده أروح أنا مثلا السحت هاي والله بهاي إما كبا سمنار كلامه شرر وحياة بدن بالغ قيب قلايو ولا دونتايو يدو مجا الصومالي لجوه تجي هدنا مدحدنا أي صار نقطة هذا طمر قصادا كما قبيل واحد باتيو كتشرتو يدو مجا الصومالي بدأ عس كوليش كده لجوه قلايو إلى الإسلام اللي أنا هاي أو عد أو موضوع ينقصوا قصنا ينقصوا فرس المش. أود ما حسنت هاي عن جولد سيو. هرت مدي ندي لاوين إنه قدر كومة تلنا administration بمعمولة. administration كمعمولة أنا وفير polarizing, divisive. ما مسنا إن تدخل ثلاثة اللي مسنا يمسوا كذي. مركب هرت عدة دل خوت اللي سوا عداس. identity سمعنا اللي هذا أنا ما أبوري وسيك حقيقي هذا. ما نتكلم بس هذا سؤال مقالو يمكن سوى مرتان وحركة سدت كوني درين كي مواد النمو أركان اللي يصير ريحي because group تراير با معمولية سياسة إن أرمها الدبادة وهذا كان تحسون برفلكت قرايسة تحسين متشة وحميس كل اللي تيجي أنا تحسون بو أيوم بمثله بركان على هي أودي إن صارين دبادة أن جودها صار هو كشقين يصير سمال اللاند استيدا ومضوا له هاي وابورو وقفك أفضل شو هدود دراسي هاي أنا represent البلد وهاي مثلات بقى أنا هرجيسه وقول وهذا الكلام ده ونكون مثلا أمريكا تجيبوتي تكتمحون غني قفك كل كهذا سومالي كي يمود دراسي لا سومالي ولا وضع هذا جودها سومالي ما حكى كذا سومالي أنا والله مد معمول قبل ده كذا أنا أقولين دولة دودي مركها تلقيت مسيج سومالي أمريكا حوجيسته جوده هي نيس هي سشدة حوجيسنو معمول وناقل هوجي الديمقراطية دعوة الدورة شد دعوة مركها دي ستيت كيل أندر ماين قرينه أو كيل لودير صراي أندر ماين قرينه أنا وحنا سلاها هيدا وحكلنا كوا هذا الله وحنا غني صح نرونا هاي هدينا نكورن كرينين دولة دينا حكومة الدولة دي ما أقبل وكده النظام كان ما قايبين تاب بشيء كده الليس السياسة دك وضريات كاي لو دليل هاي كده قايبين تاينا نرون كرينين وحكلنا كوا شيء كسنا وحنا قايبين نرون يسوي شيء
waayo at the end of the day aniga iyo idinka tooni ma talisaane in yar oo haddeer madaxtooyada joogtaan 30 qof ka badnayn ayaa taliya cidnaba aan dhigaysanayn macallinkayga waa ka maxamed maxamuude biiska ii dhigi jiray sida nabadda loo xalilay isaga dee lama weydiinayo maaha in madaxda laga dhigayo ra'yigiisa lama dhigaysanayo because ra'yigiisa lama arko inuu represent gareeyo Soomaaliya marka waxaan isleeyahay waxaan ahay dadka aaminsan in gudaha awoodda la saaro in dawladnimada la soo dhaweeyo oo dawladnimadu noqoto mid dadka aqbasha oo dadka metesha oo tii Abraham Lincoln sheegay noqoto mid dadka ka timi ay noqoto laakiin hadday dimuqraadiyaddu procedure noqoto oo qofku kursiga ku gaaro maalintuu kursiga fadhiistana dictator isu bedelo hadhowna doorasho soo doonto daan wax markayna halista way Ahmed waxaan jecelahay runtii laba qodob oo degdeg inaan ka gaarsiiyo mid waxa weeye runtii arrinta laga hadlay aqoonsigan koonfur la siiyey iyo saamaynta runtii nagu leeyahay midna waxa weeye waxyaabaha aynu wadaagi karno arrinta ku saabsan runtii aqoonsiga ee koonfur la siiyey xildhibaanka runtii si fiican uga dhawaajiyey maalintii aqoonsigaa loogu deeqay macnihii koonfuri way naga maarantay haddii lagaa maarmina cidda runtii weli aan maarmina wax u baahanaysaa waa innaga runtii marka waxaa laynooga baahnay inaan la nimaadno maxaa miiska inoo yaalla maxaa balaanis inoo ah waxaa runtii ogtiin iska daa inaynu balaanis yeelana innagu inaynu wada hadalka diidanayn in badan oo ka mid ah inaynaa wada hadalka xataa inaynu galle iska daayay inaynu mar walba lahayn koonfur la hadli mayno waana arrinta keentay runtii arrin in badan aynu dafirayno inaynu naxno wada hadalka geli mayno in last minute-ka intoo layna garbaduubo shiraynaan ajandihiisa ogeyn runtii inaynu tagno marka aniga taladeedu waxa weeye runtii haddii aynu doonayno inaynu wada hadalkan ka dhabayno aynu xaqiiqda waajahno xaqiiqdu waxa weeye aqoonsigaa koonfur la siiyey micnaheedu waxa weeye maalinta la siiyey way naga maarmeen cidda baahanaysa sovereignty-ga ay waxyeelaysaa waa innagoo aynu la nimaadno qorshihii aynu wax kula wadaagi lahayn qodobka labaad horta waa ka hadli lahaa waxa weeye arrinta shared sovereignty-ga uu cabdiqaadir jirta ka hadlay waxa ugu yara runtii ka mid noqon kara waxa weeye maanta waxa ogta waa baasaboodka waa dhukumanka yar ee sovereignty-gooda uu soo saaray baasaboodka la yidhaha haddaad si yar u eegto runtii waxa ugu yar waxa weeye dadkeenu maanta markay ugu dhow yihiin garow way tagaan taraafal intay halkaa ka tagaan ayay garowo tagaan hargeysay kaga dhoofaan dawladdu cashuur bay ka qaadataa wada hadalladan aynu ku jirno maxaa diidaya maadaama aynu markii horeba qayb ka ahayn inaynu ajandayaasha ku darno aynu meel saarno wax diidi kara anigu ma arko runtii waana arrin la dhammayn karo marka haddii waxyaabihii bulshadeenna asaasiga u ahaa aanu wada hadalkuba marka hore taabanaynin kusii jirideeda iyo wareegeysigaas runtii uma hargo inay meel tegayso marka waan aaminsanahay runtii waxyaabaha aynu wadaagi karno inaynu ka badheedhno 30 sannadood kuma jiri karno inaynu dhaahno un waynu meelaysanaynaa waxaan marka ka hadlaynaa inay adduunyadu inala soconin haddii aanay markaa adduunyadu inala soconaanay cidi ku baakabgaraynin sidaad qadiyadaada u iibinaysa haddaad taageeraba haysanin sidaad qadiyadaada u iibinaysaa runtii waxaan aaminsanahay runtii haddaanay qadiyadeenna cidi baakabgaraynin cidi danaynaynin meel ma gaadhayso markaa waxaad og tahay inaanu meel gaadhayn waa inaad ka firtaa wixii kale iman kara runtii markaan waxaan isleeyahay waxaa la gaadhay waqtigii dadka reer Soomaaliya aqoonyahooda bislaan lahaayeen xaqiiqooyin badan oo aynu dafiraynayna aynu waajihi lahayn haddii aynaan taa ku dhiiranaynaan odhanna markaan waxaan aaminsanahay ma kala weydhowda xaqiiqda inaynu waajahno aynu xaqiiqda wada hadalkii sidii yahay inuu waajahno markaasaynu dhab gaari karnaa waa mahadsantihiin asalaamu calaykum okay Ahmed waad mahadsan tahay shukran Dr. Mustafa Kaysane aan siya dib bay ka furantay okay Dr. Mustafa aan ku soo xidhno markaa insha Allah mashaakil badanna waynu ka warranaa oo xidhiidh la leh arrinta waayo marka dee xanuun qabto oo xanuunku kor iyo hoos yahay haduuka sare uu yahay jiritaankaagii uu yahay oo waan goosanayaa iyo ma goosto ka ku hayaana uu yahay mid gudahaaga ah oo wadajirkaagii ah uu yahay iyo dowladnimadaadii marka mashaakilkaas oo dhan waynu ka warramnay waxaynu kaloo sheegnay elitismku inaanu inaga dhaqan baynoo ahayn inaanu dhaqan baynoo ahayn waynu taa waynu isla qarray horta waa aad baynu u mahadsanay dhammaanteen inaynu midhkaa caawa halkan kala tagno inaan cidi inoo maqnayn anigu inta badan ma canaanto ninka kursiga ku fadhiya waayo waxaan arkaa halkuu ka yimi hadduu qabiil wax ku xukumo dee qabiil buu ka yimi oo meeshaba ku yimi oo maba qarsanba haddii uu corruption wax ku inta loo doortayba waa intaa oo dee in adeerkiiyo taajira baa la daba taagan oo le gordho aad ii soo celisidee imika maaragtay inta sii qaado waxa xanuunadanaynu qabno ee bulsho ahaan aynu qabno oo dhami waa xanuuno aynu wadano weeye waa xanuuno halis ku ah jiritaankeenna haddii aynu intaa isla qarray haddaba
waxa fiican malaha inaynu marmar dambe isugu nimaadno haddana war maxaa tan xal u ah oo tan xal u ah oo waxa la yidhi ooda dhacbeed siday u kala sarreeyaan yaa loo kala guraa kuma dheeraanaya ee waxaan xasuustay mar dhoweyto midkiina hadlayay 2016kii baa ahayd baan 16kii ayaa 15 qofna loo yeedhay oo madax bannaan marka sacad baa ahaa wasiirka khaarijiga laba qodob baanu maalin ka hadlaynay oo talooyin aad u wanaagsan isaguna si fiican buu soo qortay wuxuu doonayay dhibaatooyinka haysto oo dhan buu runtii si wanaagsan qoran waxaan isleeyahay waa wasiirka kaliya ee malaha wax documentation diyaariye ka tagay maalin dhan waxaanu ka hadlaynay recognitionka wadooyinka loo maro wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland muxuu ahaa caqabadaha inaga haysta wasaaraddiisa talooyin badan baan soo jeedinay talooyinkii meel lagu document gareeyay ma jirto haba yaraatee waana inta ka maqan walaxa ka maqan buu yiri moogtay waa inta ka maqan wada hadalladaynu tagayno wada hadalladii Istanbul ceebtooda waynu naqaanaa maanta wada hadalladii Djibouti ceebtooda waa tii xildhibaanka si fiican uga warramay marka anigu waxa ku talin lahaa waxa weeye waxaan inaga leh ha jirto cid madax bannaan oo arrimahan dadka khuseeya iyo dawadooda haddii kala waxay noqonaynaa dawo bukootay haddii dawo bukooto maxaa lagu daweeyaa salaamu calaykum runtii dood badan oo wax ka ool leh baad soo jeediseen ama aad highlight garayseen waxaan doonayaa in cabdiqaadir jirtay xildhibaanka 5 daqiiqo wax ku dhow dabcan problemskeenu wuu badan yahay xalkuna wuu dheer yahay laakiinse closing remark kooban oo runtii waliba ugu muhiimsan su'aashii intaasi peace dividend baan malay ama youth peace dividend waxaan yiraahdaa marka insha Allah sidaa ku dhameysano بسم الله الرحمن الرحيم ملاحظات waa badan yihiin waa runta dhalinyaradu waa force laga boqo waxa jira waxa la yiraahdaa wadanada caynkeena soo kale oo ka soo baxay khilaafaadka youth bulge oo markuu shaqo waayo uu noqdo magaalooyinka soo galo oo noqdo underclass bila rajaa it's very easy in loo mobilize gareeyo violence ama xsaabtu ku adeegsato ama qabaylku ku adeegsadaan marka arrinta youthka in la xaliyo mar walba oo xagga manhajkana laga xaliyo dee wax ku filan miisaaniyadan loogu talagalo waxbarashada oo la tayeeyo taasi waa taa kale waxa weeyeen arrimaha iniga Soomaaliya marxalad ba soo maray waxaanu istaa shirkii carta markii la isugu yeeray iyaga initiative ka shirka Allah naxariisana cigaal baa lahaa si dadban buu lahaa wuxuu iibin jiray war nimanka waa kuwa soo niman heshiis soo socdo marka carta la marayay baabeen ba halkeenu ku sii sugnaa anagu haddii nimanka ictiraafeen anaga halfway house noo sameeyay aanu ku sii sugno wada hadallada ama anaga initiative-ka noo daaya iyaga aanu wada hadashiino markaan iyaga wada hadashiino ay dawladda dhistaan aanu markaa arrimaha iga galo shirkii waa kii dawladda Djibouti qaadatay habeenkaa wuxuu yiri Djibouti baa Ismaaciil Umar Gella qaatay project Kenya laakiin say isku ujeedo kama niin shirka dhacanta la inagu saaray ee Somaliland exactly albaabkii dhacanta laga saarayna waa shirka Djibouti fees halkaas ka bilaabantay aynu dir waqooyi noqonay iyo harti waqooyi aynu kuraas ku yeelanay wasiirna ku yeelanay arrintii Somaliland ba halka iyadu entity-gii Somaliland haydba laga tagay shirkaasaana waxa inaga la saas warkii waxa wariyagan heshiisiino ama gabiil ama sheekh baanu geynaa wala diyaariyay markaanu iyaga heshiisiino aanu hadallo intaana bal waxda identity noo gaara wuxuu u bixiyay waxa la Safeway House wax saa Falastiin oo kale أنه عالم كله معامله international organization كله معامله أنه سكونه هذا وتوه هذا الله يديرنا وما كلا تكون عمل شو ما أنت لو تعمر إيسا إنه يجوا برهان كلي وتعمر إيسا وحوي يويس بدشي upside down بينقط تاسوا تا تن قريغانك وارنتها
laakiinse dee dowladdii haddaan nalka lagu shidin sidaa kaa loogu shido kan laynagu shidoo kale haddaana cidi nalka ku shidin oon weliba intellectualisku nalka ku shidin oonay dadka u iftiimin what's wrong with our society, what's wrong with our state. dadku kuma riyoonayaan helina maayaan haddaan la hagin oo cabdi cali haddaan dadka la hagin oon loo sheegin war cudurkeenna waa maxay dee dowladduna saasunba isaga fadhiyi iyaguna waxay odhan doonaan waar waa cadowgaa inaga faa'iidaysanaye aniga xildhibaanada baarlamaanku igu yidhaahdaan markan ku fogaado doodda hadda dooddaada cadowguna wuu dhegaysanaya dooddaadaas way wanaagsan tahay hadda cadowgiina wuu dhegaysanaya dee halkaan ku yidhahdaa marka maashuum baan ku eedaama ilaa in dooddii inay wax beddesho ayaan doonaya waxaan ugu dhiiranayaaba war waxa beddesho dadka ay qadar nasi shicibka taadeer saa u hadlay markaad baarlamaanka joogto waa layna dhegaysanaya marka inta taa laga baxo ina eedaantaan oo wax qortaan oo xalka sheegtaan oo nalka nagu shidaan I'm part of the system waan ka qoomamoodaa imika ilaahay baa saa iga sarreeya waan ka qoomadaa 2005 inaan baarlamaanka ku soo noqdo waayo waxaan soo arkaa inaanan waxba keenin waxa la yaala waxaan keenay iyo hadalladii aan odhanayay iyo doodahaygiiba inay noqdeen hal bacad lagu lisay oon cidla ku xiiqay 2005 fiiskii baan waday weliba jaamacaddu aad bay u jecleedo experience-ka Somaliland hore dee aan jaamacadahaas waxba lagu qorin ayaa la yidhi ka soo qor bottom up approach markan methodology wixii dhameeyay ayuu qayb siiyay ugu dhuftay wixii baarlamaanka gacan iguma jiro doorashada ciidamo ogola halkaasaan ka soo cararay guddi aad hoku chairman iga dhigay oo niman mudurkooda gol igula jireen waanagii xeerkii bil baan ku dhameynay waxa ka dhacay waa godan waa ku diiday halka ka soo wareegtay thesis-kiin halkaas uga dhintay in beriga iska noqdo 2005 on halkayga ku noqdo waxay iska wato mala taasaade waxba umada uga faa'iido badlaan lahay maanta abi mid baa idin sheegaya bustihiisi meel kale u dhigtay aniga waxay ugu naxdin badnayd lixdii iyo badhkii baa la igu soo dhiftay madaxweynaha idin doonaya waa unusual meeshii baanu nimi telefonkii baanu ag fadhinaa wasiirciya muuse af telefonkii waxa soo socda abi iyo farmaajo simple as that telefon muu qabsaday madaxweyne waanu soo soconaa hargeysaan ku soo soconaa waa disaster ya tale waxaan ku gaarnay markaa dee hadduu hawada soo galo lama celin karo you can't wada protocolku ma ogola diyaarad ku cidinsan ma haysidba marka ha yimaadeen sidee loo maareynaya calankii Itoobiya iyo roogii casaab waa la qaaday ciidamada la geeyay waxa la farmaajanaanu diyaaradda ku yarhayno kani ha soo dego salaanta kula qaato farmaajana odayaal markaa diyaaradda ka soo dejiyo VIP-da geeya ilaa waa madaxweyne Soomaaliyeed kulli bada inuu karaamada ka qaadno rag baa yiri halka laga celi war celin kare maynee ya ilaa inta at least wuxuu weyn yahay magac Soomaaliyeed ummad badan oo Soomaaliland joogtaa baa inuu noocaysaba marka isagana odayaal haasaawiya haloo geeyo marka dhamaysataan adiga iyo abiina salaan ugu tago soo salaan oo waxa tira walaal waan ka xumaynaa inaan dee waqti ku helin maanta diyaar kuma yihiin mar kale horta diplomacy-ga regionku waa ka lixdii iyo badhkii ilaa kowdii baan istaan bay ahay markuu Nairobi ka soo kacay ayaa naloo sheego leeyahay ma airspace-ka xaggaas u leexday horta diplomacy-ga regionku waa ka beri baynu Ethiopia kala dheeran jiray oo nunu dhinac ka raadsan jiray dhinac ka raadsan jireen maanta tii way dhamaatay Ethiopia si meel bay dhigatay farmaajana dhabarku ku sitaa bigi baa ku xambaarsan yahay waa ka Eritrea la tagaya waa ka Djibouti ignore gareynaya Eritrea iyo Djibouti dhulka haysata oo maxaabiis ka haysata ayaanu xataa dekeertasi u yeelan oran walaal iga raali ah nin baa wato waanu tagay Eritrea mooran wuxuu ku wareelay inuu Eritrea jooga waa ninka ciidankiisu u dhimanayo hiil walaal he didn't accord him the slightest courtesy or human decency-ga ninkan wax ka doonayna inuu la macaamilayna waa ninka weey wax waliba la sahlan yihiin
dee walaa khayrana anaa tafaafulay markan yidhi wuxuu yidhi madaxweynahana qaata iyo caasimaddaba waana wax dhacay shirkii buu ka yidhi waxaan samaynaya maaha shirkii jabuuti madaxweynaha hore jabuuti hortiisa ka yidhi markaasuu madaxweynaha ku yidhi dee muusoo ka jawaab de maxaa laga jawaabaa wax meesha yaala mayt markaa dadkan ula macaamilaynaa ninna waa ninkaa dhabarka u sitay ee le hargeysaan imanaya ninkaas ay keenaya kii kalena waa ka markaa leadership waxaan ka wadaa charismatica oo arrinta riixaysa innagana dee in iyo weeye wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu